halkan waxaan taxsi iyo tiiraayan la ugu diraynaa qoysaskii iyo eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen marxuumiinta habeen hore ee mataqaanaa gabadha umasha ahayd iyo wiilkii oo dhintay oo gacan ka xaq daran ay dishay. waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu baryaynaa jannada firdowsi ilaahay inuu ka waraabiyo, qabrigooda ilaahay subxaanahu watacaala inuu u waasiciyo. eeladii iyo waalidkii iyo qaraabadii iyo raxmkana waxaa leenahay dhammaan waa nagana wada dhinteen, gacan ka xaq daranaa dishay. marka waxaan leenahay sabar iimaan allah naga wada siiyo. adduunyada waa laga tegaa, idinkana waxaa idaga codsanaya inaad sabartaan. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waqtigooda meeshaan ku ekeeyey. intaasi waa taxsiyadii. waxaan kaloo halkan ugu diraa bulshaweynta oo mataqaanaa ka samaysay macnaha falcelinta ka samaysay oo magaalada muqdisho mataqaanaa mudaharaadyada ka sameeyeen shacabka Soomaaliyeed oo magaalada muqdisho macnaha ku nool. waxaa leenahay dareenkiina iyo aragtidiina iyo macnaha ficilkiina iyo waa la arkay sida macnaha dhibaatada shacabka ku dhacday inaad macnaha ka dhiidhiseen oo aad ka qayliseen oo mataqaanaa aad ka mudaharaateen. waa wax xaq oo waajib iyo oo dastuuri aad u leedihiin waaya. sidaa darteed waa intaasna waa idinku buwaadinaa oo mataqaanaa waad ku mahadsantihiin inaad dareenkiina cabirtaan. waxaan kaloo idin farayaa oo shacabweynaha bulshada Soomaaliyeed magaalada muqdisho ku nool inaad ilaalisaan hantida oo dadweynaha leeyihiin ama bulshada wada leedahay inaad wada ilaalisaan. taasna waa waajib oo in la ilaaliyo u baahan oo ina dhexdiina inaa laga dhex faa'iidaysano waxa hantida qaranka aan la jijibinin. intaas waxaan leeyahay shacabkii oo mudaharaadka sameeyey intaasaa leeyahay. waxaan kaloo leeyahay dowladda waxaan leeyahay shacabka waa shacabkiina, waa shacab idin soo dhoweeyo, waa shacab idin jecel oo dareenkiina iyo dowladnimadiina ka tarjumaya. sidaa darteed waxaan leenahay inaa shacabka loo dhimriyo, loo naxariisto. wixii shacabkii dhibaayay dowladda waxaan leenahay inay ka ilaaliso. maxaa leeyahay dowlad waa shacabka dhibaato haysato. sanooyinkan dambe shacabka dhibaato fara badan haysato. dhibaatadaas waxaa ka mid ah wadooyin malah, meel la maro malah, meel lagu ganacsado malah, dhibaato aad u darnaa jirto. marka dowladda waxaa leenahay shacabka maadaama culays hor u haystay haddana bil ramadaan lagu jiro ee cudurro fara badan ay yimideen, waxaa leenahay in shacabka loo dhimriyo oo mataqaanaa loo naxariisto oo mataqaanaa waxyaabaha dhibaa laga ilaalisho oo ciidamada madaxda qaranka ay faraan ciidamada wadooyinka joogaan shacabka la tacaamulaan. shacabka dhibaato haysto in lala tacaamulo, kii dhib haysto waddada loo fududeeyo oo jidka mare. intaas dowladdaa leeyahay. maxaa yeelay dowladdan dhib haysto macnaha cudur oo balaayo adduunyada saamiya iyadana haysto, iyadoo mataan cudurkii la ilaalinayo dadkiina noloshooda la ilaalinayo, shacabka in la ilaalini waa loo baahan yahay. sidaa darteed waxaan leenahay marka haddii cudurkii iyo dowladdii iyo shacabkii wixii dhammaan madaxa isla galeen, marka sida loo kala badbaadiyo waxaan codsanaynaa dowladda aan ka codsanaynaa in shacabka iyo dowladda inay mataqaanaa wixii dowladda danteeda ay garato shacabka dantiisa ay gartaan. dowladda waajibkeeda waa inay ka soo baxdaa. maxaa yeelay bil ramadaano barakaysanaa lagu jiraa. shacabka macnaha bandigu lagu soo rido hadda bil oo ramadaan oo khayraysan oo ilaahay subxaanahu watacaala ummadda naxariisteeda waasic tahay ilaahay subxaanahu watacaala noogu buraaqeeyey. marka dowladda waxaan leenahay bandowga oo mataqaanaa habeenkii socdo 2 saac waa yar tahay, culays waaye. waa in laga dhigo mataqaanaa 11 habeennimo sida ama 5 saac habeenimo wax loo yaqaan in laga dhigo si shacabka u shaqeystaan ee ganacsigooda u sameystaan. intaas dowladda ka codsanaa, madaxda qaranka ayaa ka codsanayna taas. maxaa yeelay intaas waa naxariista shacabka oo mataqaanaa dowladda u sameynayso waaye. mucaaradkana waxaa leenahay adinka coronaviruska jiro magaalada haddaan soo galo leeyahay oo adduunyada baabi'iyey, idinkii iyo dowladda inaad u midowdaan hal meel aad kasoo wada jeesataanna waa idin faraa taas, oo aan la siyaasad laga dhigin oo dana kale aan laga dhex samaynin. maxaa yeelay cudurkan waa cudur musiibo waa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga dul qaado. ilaahay subxaanahu watacaala culummada qur'aanka akhrinaysa ilaahay subxaanahu watacaala ummadda Soomaaliyeed Allah ugu dul qaado. maxaa yeelay ummadda adduunyada waa dhaqaalihii dhulkii uu la degay. marka dhaqaalahaasi uu soo noqdo waxaa loo baahan yahay shacab iyo dowlad iyo mucaarad hal meel in lagu soo wada jeesto. taasna wax waaye mucaaradkii dowladda faraa. waxaa kaloo faraa mucaaradkii dowladda ayagana inay isu yimaadaan mataqaanaa danta maslaxadda danta guud la ilaaliyaan, qarnamada la ilaaliyo, wanaagga la ilaaliyo, ummadda waxa anfacaya la ilaalisho, wixii dhib keeni karan laga fogaado. haddii mucaarad yihiin haddii dowlad yihiin dalkan wuxuu u baahan yahay
wuxuu badbaadin waxayna ku badbaadin karaan dawladda iyo mucaaradka isu yimaado wada hadlo oo mataqaana meel fadhiistaan oo mataqaana isku fikir naqdaan yaa ummadda Soomaaliyeed ku badbaadi karnaa intaas waa dawladda iyo mucaaradka intaas warkii ku soo gunaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh